goobtan waa goobtii ugu dambeysay view waa saddexdan pageska internet pageska qaabisay normal waa san caadiga slides baad ka dhigi kartaa inaad noocyadii slide sorter inaad sanoo kale saawa ka soo ku sheegaya inaad slidada halkan wada yimaadaan hadday qaar badan ahaayeen macnihii مثلا عددين سميناه قار كله هومينوتك دور من نسمه إما كشان مربنا سميناه مركزين تجينا الفيو مركزين تجينا سلار سورتر مركز كشان تحب يساعدك بعدين تيجي كنا كان مقبنا يا لاب وحشية يا حبتي ينا تقرأ سمين كرتو كان مقبنا يا وحطوا سيا نوعي واك أوكي وعلمي دي هيون سلار شو كان قصور لجناي أنا قصور لجناي ديزاين يا هالكين يا لي marka animation marka animation joognay design kan ku soo dhiganay buu la mid yahay kana okay marka view uu noqo slide master muxuu sameeyaa noocaas sameeyaa in qoraalkii master sameeyay iyo qoraaladaadii oo kale waxaan oo dhan isana ku kala jilniyo inaad kan sameyso marka hada design noocan kale u baahatay inaad qoraal yar oo sameysato halkana aad magacaaga ku qorto intaas baad sameynaysaa okay baad dooranaysaa view start master hand out master muxuu qabanayaa noocan u qabanaysaa isku kaaga dhigaya headerkii oo magacaad ku qoraysay iyo isku kaaga dhigaya iyo footerkeed ku qoraysay kuwan waxa doonta ayaad ku sameeysaa waa kuwan ku kala san isku kaaga dhigaya slides kale laakiin marka hadda amood waxaan wax lagu qori karo qaabka ay u noqonayn ku sheegay slidada san isku kaaga dhigaya halkan wuxuu ku sameynayaa lix isku kaaga dhigi karaa header kala magacood ku qoraysaa footer kana magaca marka view haddana inuu noqo notice master ma qabanaya waa noocan isagoo notice master waa inuu headerkii iyo labada xabo qaabkaas sameynaya inuu noqo kan waa greenland shacab ku sameynaya tan waa mastarada ruler waa marka soo shatay tan waa zoom waxay la shaqeysaa kale la shaqeysaa kana waa fit waa sida saxda kana color waa color kana gray waa gray okay markan gray doortay kuwan ay soo baxay gray markaas aad dooraysaa wixii oo noqon back to color view okay qasaad intaas in ku soo joojinaa in ku dhameynaa buugeeni aynu ku baranay PowerPoint waxaanu nimka galeynaa si aanu sameyn lahayn su'aalaha iyo waxyaabo iyo saastaanta lagu sameeyo PowerPoint kuwaas aad muhiim ah